أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون درسي أن ما أنتم حكب اللعبنا يا آية سيدتني أفراد سورة البقرة كمدة وحن كجرني في بنو إسرائيل آيده كهدلاي وحن صومرني إلهي إنه بلنك قاضي بلنتينا انتو ضبضني أي بريين إن ير أو كليئة أي بلنتي كسو بحضي بلميه لغا قاضي قارد هوري آيده هورا لغو سو شيغي قار كان آيدهن أيان لغو سو شيغايا مرول بنا وحالا موجينايا بلنك سو لغا قاضو إني برين جرين ساس وحا كسو بحيسا حقا أي شيغان أيان يهلو كتاب بانهاي أنك أدونك وغفي عنتي إن لفضيحيي ويسن ماشي وحبكو هاينين حقا ويهي قرآن كان سيدو أو تلمامايو بلمدي لغا قاضي مركو حاكمدا وإذا أخذنا ميثاقكم وإذ وقت نبي وحس أو أشيغ أيان ها حصوصتين إذ وقت أخذنا أن قادنا ميثاقكم بلنتيني أو أحيد لا تسفكون مضادين إيسان دماءكم إيجينا يعني اسمد ليسان هداد يهوديين ولا تخرجون مسار إيسان أنفسكم نفتينا من دياركم قريهن كما بحين إيسان ثم مركز كذب أقررتم واد قرتين أرين كاس أو بلنتاس كورا مركي لينيري وان أقلانا إيات تراهدين وأنتم إذنك أو تشهدون مرخاتك أو حاضر أو أرين تاسي أن يعني ليدن كوكدين سعاد بلنتاس أدو أقلاتين يعني بلنت إلهي ربنا إسرائيل قادوا حاكم ده يعني أيجا يهود نمنك اللي يراهدو يعني وي وضع دشان وربنا إسرائيل هالملكو أبتر السلام كتاب توراة لوسو دجينا وموسى والله صادره كتابك وحوا الله وشاقي انتي ناس أهل الدين كإسكوه أهل كتابك مؤمنين تأهل نبي موسى لجري يهود أي لما أقلوا يهودي كالإنو دلو وحرام يعني ديمه هذا نسام بيان يعني دك إسكو الدين أين إسدلان معه محيا لي وابا إسكو ميدا محي إسو دلان وي معناها قرآن عجبت سوءنا وعبره كمدا روحا مؤمنك iyo ruuxa kale walaalkii mu'minka naftooda waxa laga soo qaadaya qofka naftiisa laga soo qaadaya markaas waxa loo khidabaya dadka waxa la yiri yani dhiigiina ma daadinaysaan yani macnaheedu ma ruuxu asaga isdilaaya ma macnaheedu waxay tahay markuu ruuxani uu ruuxa kale walaalkii isku diinta ayeen uu dilaayo isma uu oge asaga isdilay way macnaha marka reebano waxa lagu yiri yani dhiigiina ha daadinin oo yani idinka qaarkiin qaar kale yeeyna dilin maxaa yeelay isku diin ayaa tihiin wada khadna miisaaqakum balantina ayaan qaadnay la tasfikuna madadina isan dimaakum dhiigina qaarkiin qaar kale inuu dhiig ka daadiyo oo isdishaan ma banaano waxaan kala banaanayn wala tukhrujuna anfusakum naftiina ma bixinaysaan yani isma barakicinaysaan way macnaha oo naftiina laga cabiray wala tukhrujuna anfusakum ruuxa asaga intaas wax isku dhufta asaga ordaayo wariyad ka carraysa ana iska carraayo isdilaayo arinku saas ma yani ruuxa kale markaad u sababayso inuu gurigiisa uu ka baxo ogow ruuxan aad bixinaysid waa naftaadi oo kale adaa isbixinaysid ismana ogid marka wala tukhrujuna hadi anfusakum naftiina kama bixinaysaan yani walaalihiin ma bixinaysaan min diyaarikum gurihina kama saaraysan qofkan gurigiisa asaga iska loo gurigiisa laga barakicinayo laakiin gurigaasi waa gurigaaga oo kale naftan aad bixinaysid ruuxan aad meesha ka eriyaysid waa walaalka marka ma ahayn inaad saa u dhaqanto inaad sabab ugu noqoto inuu gurigiisa ka baxo ma aysan ahayn thumma aqrartum waad qirteen arrinka asaga oo markii la yiri ka warrama arrintaas iyada ayaa la idinka rabaa oo waajib idinku ah xaaraan ayay tahay inaad idinku dhexdiina isdishaan inaad isbarakicisaan waa xaaraan arrintaas ma ogoshiin ma aydan dhihin ma ogolin ma aydan dhihin aqrartum waad qirteen waxa tir waan ogolnahay markii hadal ay noqoto waan ogolnahay laakiin markii amali ay noqotay maxaa sameeyeen waad ka baxdeen way soo socotaa thumma aqrartum waad qirteen wa antum idinku oo tashhaduna oo xaadir ah oo yani maskaxdiinu ay juusta tahay oo arrintaas ama heshiiskaas ama ballantaas idina galay aad caadi aad ogtiin thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrujuna fariqan minkum min diyarihim tadaharuna alayhim bil ithmi wal udwan thumma markaas kadib antum idinka haula'i kuwaasow taqtuluna anfusakum naftiina ayaa dilaysaan wa tukhrujuna waad bixinaysaan fariqan koox oo minkum idinka idin kamida min diyaarihim guryahooda ayaa ka saaraysaan tadaharuna idinku iskaalmaysanaya calayhim korkooda bil ithmi dambi iyo udwan iyo colaad ilaahay suu fadhaxay bal reebul israa'iil feeriya waxa la yiri balan waxa idinka qaaday oo aad qirteen idinku waliba xaadir oo soo jeedo oo aan la idinku gaadin oo la idinku kadinin oo aad maskaxdiina juusta ay taad waayay aad tiraadeen markii baraatika ay noqotay maxaad samayseen thumma markaas kadib antum idinka haula'i kuwaasow taqtuluna anfusakum naftiina ayaa dilaysaan ayadahan waxay ka hadlayaan waxa jiray qolo la yiraahdo bani qurayda iyo qolo la yiraahdo banu nadir oo yahuud ah ayaa madiina deganaan jiray waxa kale oo madiina deganaan jiray qolada dhihi jiray al-aws wal khazraj qolada dhihi jiray carabta ah ee reer madiina ahna madiina deganaan jireen dadku markay meel wada degan qabaa'ilku hadba dhinac ayay isu raacraacaan in bagaashaanbuur ayay noqotaa waxa dhaayay marka nimankan aws iyo khazraj ee carabta ah waa niman dagaal badan oo ayagu isdagaalan carabta asu jaahiliga aad ay isu dagaali jireen qabiil ay isu dagaali jireen marka isdagaalayaan qabiilkan carabta
carabta iyo qabiilkan kale carabta markuu isdagaalayo wuxuu u baahan yahay dad kale oo uu kaashto oo uu garab ka dhigto oo qolada uu rabo inuu ku duulo kula duusha qolo walba waxay raadsan marka gaashaanbuur iyo xulafo wax la yiraahdo ay raadsanaysa qabaa'ilkii yahuuda ahaa ee ahlu kitaabka ahaa ee kitaabkii tawreed haystay oo kitaabkii tawreedna loogu sheegay ma banaano ruux yahuudi ah inuu mid kale oo yahuudi ah uu dilo gurigiisa inuu ka saaro ma banaano haddii aad aragtaan qof yahuudi ah oo maxbuus oo la soo qabtayna waa inaad lacag ka bixisaan oo xoreysaan saas loogu soo sheegay dagaal markuu dhaco labadii banu qurayda iyo banu nadiir iyo aws iyo khasraj way iska kala raacayaan yani qola ay raacaysa qoladan yahuudana qola carab ay raaceen qoladan kale carabtana qola kale yahuud ay raacayaan markuu dagaal dhaco labada dhinac waa lagu wada jiraa dhinac waxa ka soo jeeda carab iyo yahuud isla jira dhinac kalena waxa ka soo jeeda carab iyo yahuud isla jira labadii yahuudood marka ayagoo laba dhinac ka kala safan ayay dagaalkii galayaan markay galaan waxa dhici karta inta isku hor imaadaan mid yahuudi ah inuu mid kale oo yahuudi ah uu dilo ayaa dhacaysa horeen waxa la isugu ogaa yahuudi inuu dilo ma banaano markaas waxa leeyahay thumma markaas kadib antum idinka haulaai kuwaasow yahuud haddaad tihiin taqtuluuna anfusakum naftiina dilaysaan oo mid yahuudi ah ayaa mid kale oo yahuudi ah dilaya wa tukhrijuuna waad bixinaysaan fariiqan koox oo minkum idinka mida min diyaarihim guryahoodaad ka saaraysaan qoladan carabta la jirtaan haddii ay xoog ay yeeshaan oo qolada kale ee carabta ah iyo yahuudda isa jirta la jebiyo meesha waxaa dhacaysa qolo yahuud ah in guryahoodii laga barakiciyo oo ay cararaan waad saaraysaan liskuma ogeyn in la saaro dilkoodana ma banaanin barakicintoona ma banaanin idinku dilkoodina waad ka qayb qaadanaysaan wa tukhrijuuna waad bixinaysaan fariiqan koox oo minkum idinka mida min diyaarihim guryahooda ayaad ka saaraysaan tadaaharuuna idinkoo iskaalmaysan calayhim korkooda bilithmi dembi iyo walcudwaan iyo colaad dadkii kale usoo kaashanaysaan dagaal ayaad gelaysaan dembi iyo colaad ayaad hurinaysaan intaas markaad samaysaan qolo ayaa la jebinaya marka carab iyo yahuud isugu jirta yahuud maxaabiisa lasoo qabanaa markii qolo yahuud oo maxaabiis lasoo qabto qoladii guulaysatay yahuuddii la jirtay markay arkaan nin yahuudi ah oo maxbuus oo lahaayo waxay dhahayeen alla kitaabkii tawreeda waxaa ku taalay yahuudi maxbuus haddii la arko in la furto marka lacagtiisa annagaa idin siinayna walaalayaalow maadaama annaga aan garab idin siinay oo sababteena aad ku jebiseen ruux kasta oo yahuud ah lacagtiisa noogu imaada hana la sii daayo way sii daynayaan markaas waxa wa in yaatuukum hadday idin yimaadaan yahuudi hadday idin yimaadaan usaara ayaga oo maxaabiis ah qoladii yahuudda ahayd ee qolada kale la jirtay ee jebiseen haddii la idin keeno ayagoo maxaabiis ah hadday idin yimaadaan usaara ayagoo maxaabiis ah tufaaduhum waad furanaysaan waxaad leedihiin diinteenu waxay qabtaa yahuudi maxbuus haddii la arko ama asiir ah in la furto marka lacagtii waatana sii daaya dhinacan waa dhinac fiican oo ruuxii in la sii daayo waad ku camal falaysaan laakiin dhinacii kalaad kharibteen waxaad samayseen haddii idinku aydan dagaalka geli lahayn maxbuusba muuna noqon lahayn xaggana waad ka soo qabanaysiin xagga kalena waxaad leedahay alla diinta waxay qabtaa in la sii daayo aan sii dayno marka tanaaqud ama isku hor imaansho ayaad arrinta ku wadaan marka wan yaatuukum hadday idin imaadaan usaara ayagoo la soo qafaalay tufaaduhum waad furanaysaan wahuwa asaga oo muxaramun xaaraan idinka ah calaykum korkiina ikhraajuhum bixintoodii horeba xaaraan idinka ahayd bixintii hore waad bixiseen dilkii hore waad disheen hadda waxaad iska dhigaysaan wax diinku camal falaayo xukmu tawraad ayaa ku soo aroortay in maxbuuska la fakiyo soo ma waan fulinaynaa maxbuus fakinta waad ogoshiin laakiin soo gacan gelinta iyo dilitaanka waxba idin lama ah marka wax la yaab leh yani wixii weynaana way banaysanayeen oo dilkii iyo barakicintii ah wixii ka sokeeyay oo ka dhalanayay maxbuusnimadii ahna yani waxay leeyihiin hal siida lacag ayaan bixinaynaa yani waa dad yani dhinacna ka fulinaya kitaabkii tawreedaha dhinacna aan ka fulinaynin markaas waxaa leeyahay afatu'minuuna ma rumaynaysaan bibacd alkitaabi kitaabka qaarkii ma rumaynaysaan oo in maxaabiista la xoreeyo oo lacag lagu bixiyo waad rumaynaysaan oo waad samaynaysaan afatu'minuuna bibacd alkitaab kitaabka qaarkii ma rumaynaysaan wa takfuruuna ma ku kufrinaysaan bibacdin qaarka kale oo ah yaan la dilin yaan la barakicinintiina waad ku kufrinaysaan oo waad dilaysaan oo barakicinaysaan hadhow markii la qabtana waad xoraynaysaan waxaana la sii daayo marka jaanibkaas intaad ka soo beenisaan kitaabka oo aad soo halaagtaan dadkii jaanibkan kale ee in la fakiyo ayaad karso waxaa la rabay kitaabka in la wada rumeeyaa la rabay oo marka horena dagaalka aan la gelin oo aan la barakicinin dadka isla markaasna haddii idinkoo aan ku jirin oo idinku ay waxba aydan dilin oo aydan u barakicinin ayaga intii lala dagaalo dad kale ay la dagaalo idinku aydan ku jirin asagoo maxbuusa la arko markaas inaad furataan alla kan diinteena ayaa saas aad tirahdaan yani way ficnaan lahayd laakiin arrin idinku aad sabab u noqoteen arrin idinku aad keenteen dilka idinku aad keenteen barakicinta idinka aad keenteen haddana inaad tirahdaan maya yani waan furanaynaaye yani waa caqli fooraro waay macnaa lidinkamana yeelahay kitaabka inaad qaarna ka rumaysaan qaarna aad ka diidaan famaa jazaau abaalku muxuu yahay man yafcalu qofkii sameeya dalika arrinkaas oo minkum idinka idin ka mida qofkii kitaabka qaarna ka rumeeya qaarna ka diida
abaalkiisu muxuu yahay illa khizyun hoog moogi fi alhayat ad-dunya noloshan adduunyo inuu ku hooga moogi illa khizyun fi alhayat ad-dunya wa yawm al-qiyamati maalinta qiyaamo yuraduna wa loo celin ila ashad al-'adab 'adabkiisa ugu daran wama Allahu ilahi ma ahanin bighafilin midhil maansan amma ta'maluna waxa aad sameeynaysan ilahi mahil maansano marka saasa reer banu Israa'iil waxa lagu dhaleeceeyay kitaabka inay qaarna ku amal falaan qaarna inay ku amal faleen sidaas marka inagana inay ugu dhicin waxa la rabaa kitaabkeena quraanka ah inaan ku wada amal falno oo qaarna inaan ku amal faleen qaarna aynan diidin quraanka ama islaamku si guud in loo amal fal ayuu rabaa ya ayuha alladina amanu idkhulu fi silmi kaafatan ulaika alladina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah markii la yiri reer banu Israa'iil kitaabka qaarna waad rumaysan qaarna waad beerisan adduunkan waad ku hoogaysan aakhirana cadaab ayaa lidin celin ya sababta saas loo yeelay ma aha abtirkooda meel ka soo jeedo oo lagu xumaynaya ma aha ee waa dhaqan xumo ay sameeyeen ayagu ulaika kuwaasi alladina kuwi ayay ahaadeen ishtaraw gateen alhayata ad-dunya nolosha adduunyo ayay bil aakhirati aakhira ku gateen yani adduunkay jeclaysteen aakhira inta iska bixiyeen oo iska yani si lacag ahaan u bixiyeen ya adduunyo oo waxba tarin oo dhamaanaysa ayay soo gashteen oo adduunyo ayay ag fadhiyaan adduunyo ayaa la fiicnaatay ulaika kuwaasi alladina kuwi ayay ahaadeen ishtaraw gateen alhayata ad-dunya nolosha adduunyo bil aakhirati aakhira fala yukhaffafu laga fuudayn maayo canhum ayaga xaqooda alcadaabu cadaabka laga fuudayn maayo walaahu ma isanahan yunsaruna kuwa loo gargaarana ma isanahan aakhiro markii naarta la geliyo cadaabka lagama fuudayna loomana gargaarayo walaqad aatayna muusa alkitaaba waqafayna min ba'dihi birrusul wa aatayna ciisa ibn maryam albayinat walaqad haqiiqa aatayna waan siinay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabkii tawreed ayaan siinay waqafayna waan raacsinay min ba'dihi gadaashiisa birrusul rusul ayaan raacsinay taariikhdoodii hore ayaa loo sheegaya aan fi banu israa'iil nabi muuse ayaa kitaab idinku soo dhiibay nabi muuse kadibna rusul ilaahay uu soo diray ayaa ka dambeysay walaqad aatayna waan siinay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabkii tawreed ayaan siinay waqafayna waan raacsinay min ba'dihi gadaashiisa birrusul rusul ayaan raacsinay wa aatayna waan siinay ciisa nabi ciise ibn maryam wiilkeeda ah albayinati xujooyin cadcad ayaan siinay oo ay kamid ahayd yani intuu dadka u duceeyo yaa ruux dhintayna ilaahay idankiisa ku soo nooleyn jiray yani dhooba intuu sameeyo oo sida shimbirta oo kale uu ka dhigo ayuu ilaahay idankiisa intuu afuufo ayay noolaan jirtay oo duuli jirtay waxa lagu xoojiyay marka nabi ciise wa aatayna ciisa waxaan siinay ibn maryam albayinati xujooyin cadcad ayaan siinay wa ayadnaahu waxaan ku xoojinay bi ruuxul qudus malakul jibriilna garab ayuu ahaa wax alla wixii u baahdo ayuu ku xoojin jiray mucjizada uu baahan yahay yani malakul jibriil waa malagaas anbiyada ilaahay yani loo soo diro ee mar walba garab taagan ee waxyiga u keena wa ayadnaahu waxaan ku xoojinay bi ruuxul qudus malakul jibriil ruuxi daahirsan oo malakul jibriil ayaan ku xoojinay afa kullama ja'akum mar alla markuu idin yimaado rasuul bima la tahwa anfusukum naftiinu wax aysan jeclayna oo idin la yimaado istakbartum wa iskibrinaysan reer banu israa'iil dabeecadoodu waa kana waxay rabaan diintu inay noqoto masaajkooda oo sida ayagu ay rabaan ayaa diin ah diintuna sidaas ma ah diintu waa tadayun oo yani ruuxa asagoo xor uma aha suu doon iska yeelo adoon ilaahay ayuu yahay ruuxu waxa laga rabaa tadayunka ama ahlu diinimadu in ay wax ka celiso diintu oo naftiisu waxa ay jeceshahay in uu diinta reebtay daraadeed inuu isaga daayo laakiin markii diinta laga dhigay ka waran sida reer banu israa'iil oo kale diintuba ayay la socotaa hawadooda sida ay jeceshahay ayay yeelayaan haddii la yiraahdo diintu waxaas ma qabto ee ka jooga waxay leeyihiin diinta maxaa iga galay dantooda bas ay daba soconayaan marka waxa afa kullama ja'akum mar alla markuu idin yimaado rasuul markuu idin la yimaado bima la tahwa anfusukum naftiinu wax aysan jeclayn yani waxa idinka diin aad u taqaana naftiinu wax ay jeceshahay wax naftiinu ay jeceshahay sameey haddii la yiraahdo wax diinku amal fal iska dhaysan diinta saa sheegtay diinka ma ahe naf jacaylka ay ka tahay laakiin wax aadan ribin laga celiyay oo lagu yiraahdo diintu waxaas ma ogolo si adiga aad shahwaadkaaga khaaska ah aad u hirgeliso inaad dadka u kharibto oo dad u disho oo xoolahooda u qaadato oo diintu ma ogolo qofka ahlu diinka waxa laga rabaa marka inuu isxakameeyo oo arintu iska dhaafo laakiin markay tiraahdo ma diinta wax iga reebaysa ma jeceli waxaan rabaa midalan sidii anigu aan raba haday la ii dhahayo waan ogolahay taas ahlu diin ma tadayunna ma ah marka waxa afa kullama ja'akum rasuul markuu idin la yimaado bima la tahwa anfusukum naftin waxaysan jeclaysan istakbartum wa iskibriseen markaas waxay sameeyeen fa fariiqan koox oo yani rususha kamid ah kadabtum wa beeniseen rususha qaar waad ogolaanaysan qaar waad diidaysaan وفريقا كوح رسوشا كمد اهنا تقتلون وبدليسان يعني ماشي انت ادجارسيسين اهل الدين الى تين اسكبا دافه دقنك ugu xun taariikhda Soomaaliya sameeynaysaan rasuul ilaahay oo idin soo diray ayaa inta beeniseen oo iska kibriseen
ayaa rususha qaar ka mid ahna gacantiinu waxay ku dhiiratay rasuul ilaahay uu soo diray intaad u gacan qaadaan inaad kow kaga siisaan ruux rasuul dilay marka rasuul rumee hadda hadii la yiraahdo yani mu'miniinta la sibirsiina waxa nimankan waa qatalatu anbiya nabiyada ayay dilaan hadda nabigiina imisa mar isku day inay dilaan marka mu'miniintu waxa leeyahay nimankani niman hadda kow u ama ah inay rasuul isku day inay dilaan hadda ka hor ay rasuul soo dileen marka qof rasuul hadda ka hor soo dilay haddana meel uu ka gaaro buu leeyahay mooga haduu fursad u helo rasuulku uu ku dili karo way dilayaan way macnaha waa dad dabeecadu ay saas ay tahay makri iyo khiyaano iyo shar ay ka shaqeeyaan marka kuwaas waxa leeyahay fariiqan kadabtum rususha qaar kamida waad beeniseen wa fariiqan taqtuluna qaarna waad dilayseen wa qaalu qulubuna yahuud madaxadeygooda markii la xaq maad rumaysaan diintan saasay waadix u tahay way marmarsiiyay keeneen marmarsiiyay ay rabaan inay ku cudur daartaan laakiin cudur daar uma noqonayso way iscaynayaan inay xunyiin oo istilmaamayaan wa qaalu waxay yiraahdeen qulubuna qulubtanada waxa ahaaday qulfun quful ayaa saaran dheheen in yahuudiintiina waan rumayn lahayna laakiin qalbigana yaan ka qufulanay dheheen wa qaalu waxay dheheen qulubuna qulubtanada qulfun quful ayaa saaran way qulubtana way xiran tahay qulubtanada waxa saaran xirnaansho bal iska dhaaf la'anahumullah ilaahi ayaa la'naday bikufrin kufrigooda daraadi faqalilan ma in yar ayay yu'minuna rumaynayaan bal la'anahumullah ilaahi ayaa la'naday bikufrin gaalnimadooda sababteeda ayuu ku la'naday فقليلا ما إن أير أي يؤمنون رمينايان قلبك أنا يقفلن إيو مرمرسيان أي شيء جايان قلبك ما حيقفلن ما يدريسان حقه أو أي سفي عن روحانه خيرك كجر أنت لبحان أي نفتضك أنفعان ما يلا إيمان ماله فقليلا ما يؤمنون إن ير أي رمينايان ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم أيضا حكاها الله يان لمن كان يهود ليل هذا سبحان أي لو فدحي نبي أنتو سليمان صلى الله عليه وسلم دتك أي أهل الدين لما أي كبادي جرين أهل الدين أنهي أنا لقى عبصده نقل له هذا أي جرين حدي أي عرفت isdagaalaan ilaahay xaqiisa ay duco ula jeedsanayaano carabtan waxayna aqoonin bay yaqaanaano nabi inuu soo bixi doono iyo kitaab in la soo dejin jiray ay yaqaanaan markaas ilaahay ku baryayaan kitaabkaas iyo nabigaas imaan doona waxay dhaaheen ilaahayow nabiga aakhiru zamanka aad soo bixin doonto ilaahayow nabigaas noogu gargaar nabigoon imaanin ayay ku sii la baryayaan markaas markii rasuulkii ay ku alla baryi jireen uu yimid soo lama rabin inay dhahan allah wa rasuulkan sugaynay in badan ayaan ku soo guuleysanay markaan ilaahay asoo ku barino dhahno ilaahay rasuulkaas noogu gargaar aan saas dhihi jiray ayaan ku soo maanta markaan rumayno asagoo nool aan garab istaagno barwaaqa adduun iyo aakhir hadday noo bilaabanaysa meeshay ka dhilaayeen bil cagsi dhan kale iska rogeen saasa loo fadeexay marka waxay walamaa goorti jaa'ahum u yimid kitaabun kitaab oo min indillahi ilaahi agtiisa ka ahaaday markuu u yimid musaddiqun rumaynaya lima macahum waxa ay haystaan oo tawreed ah kitaab qur'aan ah oo isku mid ay yihiin oo rumaynaya lan kutubtu way isu rumeeyaan way isdhamaystiraan markuu kitaabka ilaahay agtiisa ka yimid oo kitaabka ay haystaan ee tawreed ana u rumaynaya ahkaamtii uu sheegay iimaankii uu sheegay arrimihii uu sheegay walamaa goortii jaahum u yimaado kitaabun kitaab min indillahi ilaahay agtiisa ka ahaaday musaddiqun rumaynaya lima macahum waxa iyaga ay wataan wa kaanuu waxay ahaayeen min qablu hadda ka hor waxay ahaan jireen yastaftixuuna kuwa ku furitaan dalba cala aladiina kuwii korkooda kafaruu gaaloobay hadda ka hor intuusan kitaabkaan imaanin rasuulka intaan la soo dirin waxay ahaan jireen nimankan ahlu kitaabka ah ilaahay bay ku baryi jireen yani rasuulkaas iyo kitaabkaas iman doona ay ilaahu noogu gargaar rasuulkaas aakhiru zamanka iman doona ay dhihi jireen wa kaanu waxay min qabl hadda koor yastaftixuuna kuwa ku furitaan dalba cala alladina kafaru kuwa gaalada carabtan gaalada ay la dagaalayaan ayay gargaar ilaahay kaga dalban jiray inuu ugu gargaaro nabigaas iman doona فلما جاءه مركو أيمد ما عرفوا كي أي يقانين مركو أيمد فلما قرتي جاءهم أيمد ما عرفوا وحي أي قرتين سفوين كي رسولك آياتها قرآن كحقنمت كودا كتابك سوء رمى يسترى كتاب كي هوري سيئسكم مال أغي مادين سيئسكم مبادئ الشيغايان فلما جاءهم مركي أيمد ما عرفوا وحي أي قرآن كفروا ويكفرين به أساقا رسولك صلى الله عليه وسلم ويقانين تلماميزة كتابك التوراة هيانا لغو الشيغاي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث رسول سفوين كيس أساسيين أي هايين وأنا حقيقين أي كتابك التوراة أي رميسيين أي الله شاقي رسول كيساسها مركو يمد ماشي أي كرمين لهايين كفروا به ويكو كفرين ويديدين فلعنة الله إلهي لعنة ديسو على الكافرين قال لك كودها أهد قال خير ملها لعنة كل عظم مين لو سوى ملها شري سي أي هايين ما أنت نسيكر أي نقدين مركا لعنة كودها أهد فلعنة الله إلهي لعنة على الكافرين قال لك كودها أهد بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس وحاح ماضي ما شيء اشتروا أي قتين به أسجا أنفسهم نفتوضا وحا يكو خساريين نفتوضا قيمها بدنيد إني بدباديين لإسكوغا ما إني بدبادينين ونفتوضا مرة باني نار أي نفتوضا كتورين وحا نفتوضا يأي وغصبرين مركة أو أي يعني نفتوضا أقتين ونفتوضا إني النار أقطع أي ديار أقول نقدين وحاس أي حماضي بئس وحاح ماضي ما كي أي حماضي اشتروا أي قتين به أسجا أنفسهم نفتوضا يكو قتين أو أن يكفروا إني كفريين بما
أنزل الله إلهي وحي أسود دجي إني كفريان يعني قرآن كي إلهي أسود دجي أي كفريان أن يكفروا إني كفريان بما أنزل الله إلهي وحي أسود دجي محي أكفريان كتاب كان ويبقى أجايين هراب الله وسي الشيء رسولكم ويبقى يقانين maxay u diideen waxay u diidayaan baqiyan xaasidnimo daraadeed yahuud xaasidnimadooda waxay u maleeyaan nabinimada sidan midalan madaxnimada loo doorto oo kale oo ruuxi dadku ay rabaan ay madax ka dhigayaan kii rabaan ay casilayaan oo kale yaa rasuulnimada oo ilaahay xaqiisa ka iimaanaysana waxay rabaan inay doorasho geliyaan markaas waxay leeyihiin annagaaba rasuulna laga soo saari jiray oo reer banu israa'iilna la yiraahdo oo intaas rasuul naga imaaday rasuulkan ugu dambeeya maxaana looga wareejiyay oo carab looga soo saaray annagaaba iska lahayne annaga maxaana looga soo saari waayay hadii annaga laga soo saari waaye annaguna waan diidnay rasuulkaas rasuul nooma ah ma rumaynayno oo maxaad u rumayn leedahay inuu xaq wada ogtiin hore ayaa la idinku soo sheegay ma xaasidnimo oorkooda ku jira daraada ay saas u yeeleen marka waxay saas u yeeleen an yakfuru inay ku kufriyaan bima anzala Allah ilaahi wuxuu soo dejiyay waxay saa u yeeleen baqiyan gardarro xaasidnimo oo ah an yunzila Allah ilaahi inuu soo dejiyay daraadeed min fadlihi fadligiisa oo nabinimada ah rasuulnimada ah inuu ku soo dejiyay fadligiisa oo diinta ah ala man yashaa qofku doono oo min cibaadi adoomiisa kamid ah waxay leeyihiin rasuul anaga maxana looga dhigi waayo ilaahay asaga rasuul cid raba ka dhiganaaye idinka maxaad rabtaan maya mar hadii anaga naga leexiyo anagana ma rumaynayno ilaahay asaga ayaa meeshu dhiganaayo Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allahu yastafi min al-malaa'ikati rusulan wa min an-nas ilaahay asaga ayaa doorta cid uu rasuul ka dhiganaayo waa fadli gaaro ilaahay ruuxu raba uu siinaayo cidi ilaahay uu siiyay in lagu rumeeyo oo ilaahay looga mahad celiyo ilaa waa naxariis rususha ilaahay soo dira ayaa la rabaa laakiin in la yiraahdo maya ilaahay inuu meeshan dhiga ma aysan ahayn fadligii ilaahay in lagu qabsado oo ilaahay fadligaaga maxaad halkan ugu aadisay annaga maxaad noo siin weeday ilaahay miyaad maamulkiisa gacanta yaani oo tagisan way macna an waxaasidnimo waxa ka keenay an yunzila Allah ilaahay inuu soo dejiyay daraadeed min fadlihi fadligiisa oo quraanka iyo diintana yaa wuxuu ku soo dejiyay ala man yashaa qofku doon oo min cibaadi adoomihiisa kamida rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu soo dejiyay markaas waxay leeyihiin maxaa loogu soo dejiyay annaga maxana loogu soo dejin waay ahum yaqsimuna rahmat rabbik ilaahay naxariis ma yaga qaybinaya saa waxa loo yeelay oo ayaga looga leexiyay oo nabiga loogu soo dejiyay li alla ya'lam ahlul kitab alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah inay ogaadaan inaysan awood u lahayn fadliga ilaahay inay hor istaagan wa anna al-fadla bi yadi illahi yu'tihi man yasha fadliga ilaahay baa iskala ciduu doono ayuuna siiya marka an yunzila Allah ilaahay inuu soo dejiyo min fadligiis ilaahay fadligiisa ku haystaan ilaahay fadligaaga maxaad cid kale u siisay annaga maxaad noo siin weeday ayay leeyihiin an yunzila Allah ilaahay inuu soo dejiyo min fadligiisa ala man yasha fadlan min ibadati dumis kamid fabaa'u way laabteen biqadabin caro ala qadabin caro lagu daray caro la kor saaray ayay la laabteen oo ah gaalnimada caradeeda iyo xaq ay ogaayeen qarintiisa laana dad badan ayaa saas ku fasaadaya dad badan diinta waxay uga istaagayaan nimankan ay diinta u yaqaaneen ee ahlu kitaabka ah markay diintan diidaan shaki ayaa galay waxay leeyahay hadii arrintan xaq tahay nimanka diin waligood soo sheegi jiray inta jooge ee kuwani ma yaani sheegaan inuu xaq u yahay marka qarintaas xaqa ay qariyeen iyo kufrintaas ay kufriyeen labadaas oo la isku daray ayuu ilaahay caro kooda saaray caro lagu daray fabaa'u way la laabteen biqadabin caro ala qadabin caro lagu daray ayay la laabteen biqadabin ala qadabin walil kaafiriina gaalada waxa u sugnaaday cadaabun cadaab muhiinun oo ihaaneeya cadaab aad u ihaaneeya oo aad u dileeya ayay gaaladu galayaan wayda qila lahum aaminu bima anzala Allah wayda qila lahum hadii la yiraahdo aaminu rumeeya bima anzala Allah ilaahi wuxuu soo dejiyay qaalu waxay dhahayaan nu'minu waxaan rumaynaynaa bima unzila calayna wixii annaga lagu soo dejiyay halkan way meesha lagu kala dhaqaaqay marka nimanka la yiraahdo ahlu kitaabka ama yahuudaha aadan ama nasaaraha aadan waxa laga yaabaa dadka aqoonta diinta aan lahayn haday niqaash la galaan inay yaani uga soo saaraan inay ayaguna yaani diin haystaan oo mu'miniin ay yihiin muslimiinteenna ay mu'miniin yihiin cid walba kitaabkeeda iyo rasuulkeeda inay daba fadhiso yaani sidaasna dad mu'miniin lagu wada yahay oo jannada la isugu imaan doono arinku sidaas ma ahay habka wax loo rumaynaayo ayaa isku xiran waxa la yiri yaani ilaahay kutubtiisa iyo rusushiisa oo dhan waa in la wada rumeeyo inaga mu'miniin hadaan waan ogolaanay waxaan dhahnay anagu dhammaan waan rumaysanahay rususha ilaahay oo dhan kutubta ilaahay oo dhan waan rumaysanahay la nufarriqu bayna ahadin min rusuli waan ogolaanay ayagu waxay yiraahdeen maya anaga waxaan rumaysanahay qolo walba rasuulkii ayaga ku soo aaday yahuudi waxay leeyihiin anaga nabi Muuse nooma dhaafto nasaaraduna waxay leeyihiin anaga nooma dhaafto inagu waxaan leenahay nabi Muuse waan rumaysanahay nabi Ciise waan rumaysanahay nabi Maxamed waan rumaysanahay ee idinku nabi Maxamed nala rumaynaysaan waxay dhahay ma idin lama rumaynayno saas daraadad ayay ku gaaloobeen waana gardarro yaani waxa ay sameynayaan
وهذا إنك بهدان ديلا مثلا النبي محمد بس عن رميننا أو النبي عيسى مر رميننا أو النبي موسى مر رمينا هدان دهنو إنك مؤمنين من نقونينه محايا الرسول إلهي واسكمت كل إن إسلام رميا الربا مركا إنه وحن كفي عنا أو عقلك مركو شقايو يعني إنه قلنا نقاش أي تحت وحالي هذا شيء وحالي مثلا وحالي إيه جابي ولا هلا لكن إيه داير لما هلا يعني قف قدو مثلا واحد داير وهيس أول داير سوق قدو سوق قسطو عبرك وجب بهاي مثلا إن كجابان أي تحت أنت كدير يا دوس كجويو وحي أبهنا وهلايا لكن مركو ردو جاب صدو أو إن ير أنتو سوق قسطو ماشي أبهنا أي جاري ويسو ماله ككبر مهلايا إنك مركو رسول شيء أردنا وينو ديارسين مال عن كب حسن هيبة مال وإحنا يا خساري هي مالنا اللي جسوا قلي أو عن بيني مجرت لكن أيجا ويجاب صدان مركو وحيد هذا رسولك أنا نواصل دري بس أي نوجوبتها كتاب كنا نوصل دري بس دينتو أردنا وحي شيء يعني رسول شيء أردنا إلا ورمايو عدي مركو كسر لك جاب صتي أنت كلم من أيكو قالوا لي ومعناه صافي قالوا كوين مركو عليه وإذا قيل لهم هدي لي هذا آمنوا رمايا بما أنزل الله إلهي وحي سود جي كالي الرماية دي القرآن كان إلهي بسود جي نبي محمد إلهي بسود كالي الرماية هدي يهود الوير هذا قالوا وحي دها نؤمن وحن رمينا بما أنزل علينا وحي أنك نلقو سود جي بس ويكفرون ويكون كفرنا بما وراءه وحي كالصهرين قيبت الدنباء نبي محمد كتاب كيسي أيك حسابته ومجد ويكون كفرنا هدي نبي محمد كتاب كيسي يكون كفرنا كفار أي نقنا ويكفرنا ويقالوا بهم سيدا إنك بهدان كتب تاسكال كفرنا أن كفار نقول لهم أيقنا هذا وحي نقولين ما دام حلقة يكون أكادين إن أهل النار قال أيين مرك ما ده كلام مؤمنين والنهي وحليه وحد مؤمنين كنا قويين كتبت أوران الإسلام ما يال الربي رسوش أوران الإسلام ما يال الربي إذن كنا واد قيبسان قيب انت أسئلة كقالوا ذين مرك ويساسي كقالوا بين ويكفرون ويكفرون بما وراءه ويكسوا على كيل وسود دجي أيجا وهو أصله كان أي كفرين عيان وياي الحق وحق كتاب القرآن كإديدين وكتاب حقه وهو أصله الحق وحق مصدقا حال وياكير رمينايا لما معه وحا هيستان إن كتاب كان القرآن توراة أحكامتي كتالي بلاديد أي شيء وان رمينينا إنجيل وان رمينينا لكن أيوة أنت تحريفيا ويقلعيا ودينتي إلهي أي كل حدا أو أي عنتوضا أي كوكو قرتين أو اللي يقانا حتى تاريخ أي قرين يننكي قري أي تاريخانتو اللي يقانو أي لين كاسن دين كويسنا كتابك حقها هذا عد قرت أي سنجرين إلهي وسود الجي حقها أنا ويديديهن أصلا كتابك حقنا وياي كتابك أي هرق هيستين التوراة الإنجيل أنا والروميناي مصدقا حال الروميناي لما معهم وح يجع هيستان للجرة قل واحد كتر هذا نبيه يمكن يهودا اسكت جايين أهل الكتاب أهل الدين أيهين أو حق الكتاب جايين واحد كتر هذا فلما تقتلون من حد أدي ليسين أنبياء الله إله النبي عيسى من قبل هذا الذكر أو يدي نيه قتلت الأنبياء يا أهان كو هذا النور اسكت جاي يهودا إن حق الكتاب جايين يعني أنت إلهي عاين هذا أبناء الله وأحباؤه داعي مر إلهي أنت إن الله فقير ونحن أغنياء إلهي وحمايس أنا وحسن هذا نصاص أي تهلا أنكم بجنة جلينا ورجنة اسم أركيسان شقنا اسم ملهذين حدا ضطفي عن آتيهين نبي الله محمد الله يسين قولوا حد كتر هذا فلما تقتلون محد أدي ليسين أنبياء الله إلهي نبي ديسا من قبل هذا كور إن كنتم هداتين مؤمنين هداتين خصوصي الله محمد الله يسين مرك هذا كور نصاص خصوصي أدي لجرتين حدا أنا دي بين ليسان حق مال إذا كسر مري مجرته حدا حق ربطان كتاب كان قرآن كأي حق كان صورة عد كتاب كان قرآن كان صورة عنا حقكم التاجنو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين درسي إنه ما أنت شكوى جاي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.